بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عاو اي تاريخdu tahay 26kii bishii September 2019 aan halkan ka soo jeedin doonaa qaybtii shanaad ee aan uga hadlaynay company-ga ama shirkadda lagu magacaabo OneCoin sheegatay in ay tahay company ama shirkad ka shaqeysa hawlaha cryptocurrency-ga waxaan horey u soo marnay ilaa 4 qaybood oo hore waxaan ka codsanayaa dadka afartii qaybood hore aan wali daawan ama dhageysan in ay ka dhageysan doonaan insha Allah ta'ala linkiyada aan hoos soo dhigi doono videogan ama codkan linkiyada ka hooseeya hoos ayaan soo dhigi doonaa insha Allah halkaas ay marka qaybihii dhaafay kala socon doona insha Allah ilaahay idinkiis caawa waxay noqon doontaa habeenkii ugu dambeysay oo aan kamerigan arrimihiisa falanqayno insha Allah caawana waxaan u balansanahay inaan ka hadalno dhowr qodob waxaan ka hadli doonaa kamerigan ama shirkaddan OneCoin dadkii soo maray kameriga ka soo shaqeeyay qaarkood soo aaseen iyo qaarkii kale oo ka soo shaqeeyay kamerigan ee madaxweynta ahaa ee madaxda ka soo noqday ee meelaha fiican kameriga ka soo gaaray ee caanka ka noqday kamerigan dhexdiisa ee saameynta faraha badan ay yeeshay runtii oo kamerigan lacagta ugu badan ku soo xareeyay oo soo galiyay dadkaas dad fara badan oo kamid ah ilaa 20 qof ayaan caaw insha Allah ka sheekayn doonaa dadkaas meesha ay ku dambeeyeen waxaan arki doonaa dadkaas inay noqdeen dad kameriga ama ka tagay ama ka cararay ama la xiray taasoo ayaduna ku sii cadeyn doonta ku tusi doonta in shirkaduna ay tahay shirkad aan si sax ah u shaqeyn ayay daliil u tahay marka taasaan caaw ka sheekayn doonaa insha Allah dadkii kamerigan soo maray waxaan kaloo insha Allah sheegi doonaa oo xoogaa isdul taagi doonaa wadamada shirkaddan dacwada looga qabsaday ama laga dacweeyay ama kiisasku ka yaalaan oo dadka xirxiray waxaan kaloo ayadana dulmiri doonaa wax yar insha Allah ta'ala kameriga iyo qaabka uu u dhisan yahay waxaan ku hormarnaa marka kameriga iyo qaabka uu u dhisan yahay kamerigan horta saan hadda ka hor soo sheegnay oo aan iraahdo afartii qaybood ee hore marar kamid ah aan ku soo sheegnay waa company ku shaqeysta systemka adduunka maanta looga yaqaan MLM multi level marketing oo ah dadku inay ayagu iskeenaan ee qof keeno qof lacag ka soo qaado lacagtaasna kadib ay kor aado oo dadka ay ka sii koreeyay dadka lacag soo ururinaya ay gaarto ee kameriga dadka ugu sareeyay lacagta marka ay gaarto dadka keenay lacag ka soo qaadan isagana commission iyo wax loo tuuro xoogaa loo tuuro qaybo hore aan ku soo sheegnay laakiin waxaan wax yar dul istaagayaa qaabka ay naagta la yiraahdo Dr. Ruja Ignatova ee ah gabadha iyadoo asaastay company-ga OneCoin qaabka ay wax ku saleysay qaab askareedka macnaha ay u dhistay ama hab askareedka ay u dhistay OneCoin dadka u shaqeeya ee OneCoin promoters la yiraahdo ama leaders la yiraahdo ayaan wax yar dul istaagaynaa runtii waxaan oran karnaa gabar waxay ahayd aad iyo aad u caqli badan walow qaabkan uu yahay qaab runtii kameriyaasha badan ee adduunka jira MLM-ka ay ku dhaqmaan oo ah qaab dadka kala sareeyaan laakiin haddana qaabka ayada ay u dajisay oo dadka ay uga dhigtay sida qaab askar camal ah kala sareysa oo garaado u kala sameysay qaarkood dablayaal ka bilaabayaan ilaa ay ka gaaraan generaallo iyo korneello iyo meel sarsare ka gaarayaan qaabkaas runtii wuxuu yahay qaab aad iyo aad cajiib u ah kameriga marka soo gashid hadaabti inaad ka shaqeysatid oo aad dad keentid oo commissionka aad qaadatid macnaha dadka keentay lacagta ka qaadaysid commission laga siiyo heerar baa soo maraysaa heerka ugu horeeya waxaa lagu magacaabaa Sapphire-ku waa qofka ugu hooseeya ee qofka dadkeena waxa looga baahan yahay marka magaca Sapphire hadduu rabo inuu helo darajada Sapphire-ka la yiraahdo waa double oo kale dablaha askariga ugu hooseeya kale weeye hadduu rabo inuu gaaro darajadaas waa inuu lacagta uu keenay oo soo galiyay company-ga ay noqotaa $7,000 oo hal garab ah garabka kale waxba looga baahan dabcan saan hore soo sheegnay qofku markuu dad keenay laba garab uu sameysanayaa garab midig iyo garab bidix uu sameysanayaa marka hal garab oo kamid ah waxa laga rabaa $7,000 inuu ka keeno garabka kale waxba laga rabo magaciisa ninkaas qofkaas waxa lagu magacaabaa Sapphire waa double darajada ka koreysa waxa lagu magacaabaa Ruby qofku markuu darajada Ruby gaarayo waxa laga rabaa inuu hal dhinac dadka ka farcamayana oo isaga ka hooseeyo lacagta ka soo ururinayo halka dhinac midigta oo kale mesela inuu ka keena laga rabaa $40,000 dhinaca kale oo liitan ah oo lacagta yar ahna waa inuu ka keena $10,000 marka waa inuu $10,000 soo xareeyaa plus waa in dadka isaga ka farcamay oo ka hooseeya oo ayaguna kale dabcan dad kale sii raadinaya dadkaasu waa inay ku jiraan laba qof oo Sapphire ah oo ayaguna mid kasta 7,000 keenay marka qofka Ruby-gaahi waa qof isaguna marka laga rabo adiga qiyaastii $64,000 inuu soo xariyo kameriga soo galiyo markaas darajadaas magaca Ruby qaadanaya qofka si sareeya waxa la yiraahdaa Emerald ku $80,000 ayaa laga rabaa hal dhinac inuu ka keeno hal garab kalena waxa laga rabaa $40,000 inuu ka keeno plus saddex qof oo Ruby ah inay ka tirsan yihiin kooxdiisa ayaa la rabaa isagana kulay dabcan kamerigu wuxuu sameeyaa marka dadka Ruby kale marka meelahan kale soo gaaray Emerald-kiyo wuxuu ku abaalmariyaa macnaha wuxuu siiyaa bonus ah hadda Emerald kale waxa la siinayaa say sheegeen computer bay siiyaan qofku ilaa lacag badan buu soo xareeyay
computer bay ku abaalmariyaan oo ay usii dheer tahay macnaha waxa usii dheer commissionka caadiga u qaadanayna u dheerta emeraldka waxaa ka koreeya diamondka $200,000 dhinaca iyo dhinac $60,000 dhinaca iyo 3 qof oo emerald inay ka hooseeyaan isaguna waa saas blue diamond baa ku sii xiga $500,000 inuu dhinac ka keeno dhinac kana $200,000 qof ka keeno $700,000 keeno 4 qof oo diamond waa inay ka hooseeyaan oo groupkiisa ka tirsan yihiin qofka isaga saacada Rolex la lagu abaalmarinayaa iyo waliba commissionkii uu qaadan lahaa blue diamond waxa ka sii koreeya black diamond $1,500,000 ama $1,000,000 bar oo dhinaca iyo dhinac kale $500,000 iyo 5 qof oo blue diamond inay ka hooseeyaan qofkaas saacada Rolex-ka oo goldiga dahab la siinay qofka ugu sareeya darajada ugu sareeyana ah ee la gaaro ee kamarigan laga gaaro waxa lagu magacaabaa crown diamond ayada dad gaaraba iska yar dadka gaaray waa dad dhif ah oo fara ku tirisa waxa kamid ah liilaradii waaweynaa gaaray Sebastian Greenwood iyo Joha iyo raggaasa kamid ah ayagu waxa laga rabaa $8 milyan ay ka keenaan dhinacna $1 milyan bar ay ka keenaan 6 qof oo black diamond ka hooseeyaan waxa la yiraahdaa Soomaalida qofka ugu sareeyay wuxuu gaaray blue diamond waxaana markaa waa iska wax darajo ay kambanigu samaystay darajo walbana darajada ka sareysa waxa lagu gaaraa hadba inta aad ka lacag keenid badan tahay haddaan hadalka jilcino waxay noqonaysaa qof walba inta uu lacag ka soo ururin badan yahay ayuu ka darajo sareeyaa magacaas baana loo bixinaya marka dadku badanaa magacyadan beenbeenta ama awaalka ayay ku tartamaan nimanka leaderinta ah waxaad maqlaysaa leader hebel oo Soomaaliya wuxuu gaaray blue diamond buu gaaray baa maqlaysaa yani waa nin general ka gaaray kambaniga waa nin dadkii xoolahooda soo qaatay oo soo ururiyay way oo kambanigan ka soo galiyay way marka waa isku darajo magaciyaal ah oo kambanigu bixiyo waxa kamid ah darajooyinka ay bixiyaan dadku waaweyn ay qaataan master distributor MD master distributor waa qof macnaha waa kuwa ayagu sare oo meelaha sare jooga oo ayagu wakiilka ka ah koodadka iyo package-yada cusub loo soo sameeynaya iyo waxaas qaybiye way waa dad sare way waxa kamid ah GLG iyo inner circle iyo wax noocaas ah kamid ah darajooyinka waxaas marka aan soo sheegno oo dhan saan hore soo sheegnaba waa darajooyin kambanigu bixiyo sida askartii kale loogu tababaro oo qof ka sareeya uu sii higsado sidoo lacag badan dadka uga soo ururiyay systemka kambanigu dhisay marka waa qaabkaas waxaan bilaabi doonaa dadka marka kambanigan soo maray ee ka tagay iyo qaabka ay uga tageen oo darajooyinka hadda aan sheegayno runtii soo wada maray macnaha qaarkood meelaha ugu sareeya ka gaaray qaar meelaha ugu sareeya meel waxay ka hooseysa ka gaaray meelaha qaarkood ahayeen dadkii kambaniga ba asaasay ayaan marka bilaabi doonaa ka sheekeyn doonaa ay meesha ku dambeeyeen waana arki doonaa qof walba ay darajadu gaaray insha Allah dadkii kambaniga ka tagay waxa jirta in badan oo kamid ah waxay markii hore ka yimaadeen intii kambaniga OneCoin ku soo biirin waxay ka yimaadeen kambani kale ama shirkad kale oo scam ah يعني توغا oo dadka dhacda ay ka yimaadeen kadibna OneCoin bay ku soo biireen ay ka dhax arkeen dantooda iyo in lacag kale ka heli karaan markii dambe ay ka tagayeen in badan oo kamid ah runtii scam kale u wareegeen oo tuuga kale kamid kale tuuga ay u wareegeen qaar saas ay ahaayeen qaarkoodna waa la waayayba oo macnaha meel ay jaani cirib dhigeen waa la waayay hal mar baa la waayay dadkii si kamid ugu shaqeynayeen ayay dhunteen oo hal mar la waayay qaarkoodna xabsiga la dhigay oo xabsiga liinta ku cabayaan oo wadamada adduunka ayaa dambi ka galeen oo loo haysto shirkadan iyo inay shirkad dambi ku jirta ay tahay kadibna xabsi baa la dhigay laakiin intooda badan waxay ka sameeyeen dadka kani inay yihiin dadka taajiray kambanigan OneCoin والعق فر بدن كهلي واي العقد هذا أنك شكلنا تراد بدني والعق كورور سدد كمده وين تا يوصل كمبنيك كورور سوي وحكوا رأي إنه كبلا من number 1 دكتور روجا إجنا توفى. In 2 years, 10 million users, 1 million merchants. This is a force that no one else in this industry has even dreamt of. كريبتو كوين gabadha la yiraahdo Dr. Roger Gnafafo waa gabadhii asaastay saacada kor soo sheegnay kambanigan OneCoin markii hore waxay ka soo wareegtay kambani kale oo scam ah oo Bitcoin la yiraahdo kadibna OneCoin bay asaastay waxayna ka samaystay millions of euros lacag far badan oo billions ah ayay ka samaysay sida aan hore u soo sheegnay kambanigan lacagta uu qaaday waxa lagu qiyaasay ilaa lacag ka badan 4 bilyan oo euro ama aan niraahno lacag ka badan 4 bilyan iyo bari dollar naagta tan marka waa naagta asaasay Dr. Roger Gnafafo kambanigan 2014 ayay asaastay kadibna waxay soo wada kambaniganba oo hadda meel ka khudbaysaba 2017 bishii October ayay diyaarad waxay u raacday wadanka Greega halkaas ayaa ugu wardambeysay kambanigan shirkaddan OneCoin naagtay asaastay ilaa haddana meel raq iyo ruux ay dhigtay lama hayo yani waa la waayay Mareykanku dacwo u haystaa gabadhaas iyada ah maxkamad baana sugayso laga gudbiyo warranty jartay in la soo xiro meesha lagu arko ayadoo lagu eedeynayo inay furtay shirkad cryptocurrency ah oo fake ah iyo istamarin lacagood ayaa loo haystaa marka naagtaas waa la waayay Dr. Roger Gnafafo halkaas ku tagtay waa naagtii kambanigan asaastay shirkaddan waxa ku xiga ninka la yiraahdo Sebastian Greenwood oo hadda kor aan soo sheegnay. You know and I know that the coin value is the most important part of our
business. ونينكا لا أساسي أما قاعيرها وأها كبدا دكتور روجا إكنوتوفا مركي أساسيين كمانيجان وان كوين مركي هرنا وحي كسو ودا وريغان لبدا بكوتشيرين كمانيجا كالو اسكام كاها بيتكوين إساقونا نيكا أداقاهي درجوين بو كمانيجان دبعا كغاري كرون دايمن بو أها ماستر ديستريبيوتر نوو أها درشاس هير كسر أيو كغاري لعاقا آدي آد وفربادنا كمانيجا وكيل جري ومليانيسا نيكا مركي هرنا وحو كي مسا سوشيني كمانيجا بيتكوين كوحا وسي هرية حتى كمباني شركة ليرا sitetalk.com iyo OPN ayuu ka shaqeyn jiray ayaguna MLM ku shaqeysto scam ah waxa la yiraahdaa ninkaanu 400,000 oo memberski kamaniyaasha hore uu kala soo wareegay ayuu ku soo daray OneCoin ayaa la yiraahdaa marka nin wuxuu ahaa caan ah runtii kamaniga dhexdiisa aad iyo aad caan uga ah wax fara badan ka qabtay meel fiican kamaniga aan gaarsiiyay si uu noqdo kamani weyn oo lacag fara badan ay gasho ninka odaga millionaire buu ahaa millionaire China ayaa lacag fara badan oo malaayiin ka xayratay ninkan waxa la sheegaa in lagu xiray wadanka Thailand kadibna loo soo gacan galiyay wadanka Mareykanka waxa la sheegaa inuu hadda wadanka Mareykanka ku xiran yahay xabsigiisa walow aan wali la xaqiijin 100% laakiin sida loo badaya ninkaasu xabsiga Mareykanka ayuu ku xiran yahay ayaa la leeyahay halkaas uu inta ninkaas ku cabeeyay ninkaasuna waa tagay waa ninkii labaad ee kamaniga ka taga ee dadkii asaasay kamaniga kamid ah qofka saddexaad waa qof lagu magacaabo Juha Parhyala and next year we're going to create a couple of million more. Juha Parhyala waa nin Finlandis ah kamanigan isaguna darajo weyn ka gaaray runtii master distributor ahaa Crown Diamond ahaa ninka isagaahi waa ninka ay ku faani jireen shirkaddan OneCoin One Life oran jireen waa ninka adduunka ugu salariga badan waxa laga wadaa waa ninka adduunka ugu mushaar qaadasho badan say sheegeen waxay oran jireen ninkan ku faanin jireen inuu bishii ay soo gasho $4 milyan sanad walbana ay soo gasho lacag ka badan $24 milyan lacagtaasna uu ka heli jiray dadka isaga ka farcamay kamaniga uu ku soo daray ee ka wada hooseeyo tirada badan malaayiinta ayuu ku soo daray dadkaasna lacagta ka heli jiray iyo qaar oo abaal marin u helo lacagtan la ururo dhan ragga gaari jirtay oo cuni jiray ayuu kamid ahaa ninkan millionaire buu ahaa si sheegeen nin aad iyo aad millionaire u ah ayuu ninka isagaahi wuxuu kamariga u shaqeeyaba maalin uu ka siibtay kamari dhamaadkii 2017 ayuu ninkan ka tagay kamaniga OneCoin oo la waayay hal mar kadibna waxa laga warhelay inuu furtay kamani kale oo isaguna shirkad tuuga ayaguna MLM ku shaqeysata oo lagu magacaabo Solidus Global oo uu yiri OneCoin ayay macnaha waxay u tahay duplicate macnaha copy OneCoin oo kala weeye laakiin gold baa ka dambeeyay dadka ugu sheekeeyay kamanigaygan dahab baa ka dambeeyay ayuu ugu sheekeeyay waana kamani kirta oo dahab ka dambeeyay kamanigaas waa ka baabay 6 bilood kadibna kamarigaas waxa la sheegay inuu ka burburay oo ka baabay oo meel la gaari waayay kadibna ninkii waxa ku dhacay disappear hawada uu ka qarsoomay mar danna waxa la sheegay isagoo wadanka la yiraahdo Cambodia baar khamri ka furtay ayaa la sheegay lacagtii malaayiinta xageeyay ilaa baa yaqaan meel uu geeyay ninka isaga Juha Parhyala la oran jiray waa ninkii ku magacaabi jireen Baba OneCoin meesha gabadha kamaniga furtay Dr. Ruja la oran jiray Crypto Queen isaga waxa lagu magacaabi jiray Baba OneCoin يعني nin baaba waa nin macna meel fog ka gaaray baabash ninka isaguna waa qulqulay waa tagay waa ku daayay ninka ku xiga afraad Igor Alberts Igor Alberts You can get that nowhere. There's no bank on this planet where you get that interest. ninka isaguna millionaire buu ahaa kamaniga wuxuu ka sameyn jiray lacag sidii sheegan ayagu haday run tahay $2 milyan iyo $400,000 ayuu bil walba kamaniga ka qaadan jiray lacag haya soo gal jirtay nin millionaire ah buu ahaa guryo aad iyo aad qusuur oo cajiib ah ay ku magacaabeen ku sifeeyeen sida guryaha Michael Jackson uu dhistay oo kale ayuu ninkan wuxuu ka dhistay Holland halkaas ku raaxaysan jiray kamaniga lacagta uga daldalan jiray dad fara badan buuna keenay nin aad u shaqeeyay ayuu ahaa kamaniga caanka ah ragga waaweyn buu ku jiray tuugada waaweyn buu ku jiray ninka odaga isaguna kamaniga waa ka tagay waxa uu ka tagay dhamaadkii 2017 wuxuuna u wareegay kamani karo oo scam ah oo cryptocurrency ah oo lagu magacaabo Dogecoin ayuu u wareegay sida arkaysaan walaalayaal kamanigan ama shirkaddan OneCoin dadka ka tagaya inta badan hadda wax intaan soo sheegnay wax u badan yihiin waxay ka tageen 2017 dhamaadkiisii waxa moodaa sheekada isla wada ogaanay wuxuu ay tahay oo macnaha markii naagta ay qarsoontay la waayay ay waxay noqdeen xarag furtay nin walba meesha uu ka dhuntay qofka shanaad waxa lagu magacaabaa Kari Wildrose CoinSafe is the latest, most amazing product OneCoin has to offer you today. ninka odagaahi isagu aad buu kamaniga ugu olan jiray waa ninka ku magacaabi jireen Energy Man ninka kamaniga mikrofoonku aadama wankan u ahaa ayuu ahaa oo aad iyo aad ugu olan jiray meel walbana soo saa ka soo muuqan jiro taagna ayuu ahaa ninka isaga rag waaweyn ayuu kamid ahaa isaguna 2017 ayaa kamaniga laga faayiray waa laga cayriisay sheegeen kadibna wuxuu u wareegay Dogecoin scam kamaniga aan soo sheegnay oo Igor uu wareegay oo isaguna yiri waxaan sameynay coin lagu magacaabo Doge kaasuu isaguna u wareegay qoliyaha scamka kale ayuu u wareegay san arkayno dadkan marka hore scam bay ka yimaadeen kadibna kamaniga markay ka tageen scam kale u wareegayaan wax kale ma aha shaqada ay yaqaanaan ba intaas dadkuna noloshooda waxay ku soo dhameysteen shaqada noocaas dadka in la dhaca xoolahooda la gurta markay meel ka tagaanba oo meeshii lagu fahmaba oo muddo ka shaqeeyaan lacag far badan ka helaanba
waa ka wareegayaan meel kale cusub iyo dad kale cusub oo ay jahwareeriyaan bay u wareegayaan ninkaas saas ku tagay waxaa kaloo kamid ka tagay nin la yiraahdo Frank Ricketts runtii nin caan u ahaa so ninkan waxa weeye nin aad loo yaqaan u ahaa Black Diamond ayuu ka gaaray macnaha darajada ugu sareysa darajada ku xigta ayuu gaaray wuxuuna kamid OneCoin kala shaqeyn jiray xagga money laundering-ka lacagaha kamid soo galaya kala gudbinteeda adduunka ayuu ninkan aad u qaabilsanaa wuxuuna asalkiisa hore ka yimid company isaguna scam ah oo tuuga ah oo company-ga uu Sebastian Greenwood ku jiray ayuu isna ku jiray oo side talk la oran jiray iyo OPN kadib ninkan isagaahi Frank Ricketts company-ga wuxuu ka tagay 2018 haba ka tagay wuxuu u wareegay oo furtay shirkad kale oo lagu magacaabo Olivis oo ay yiraahdeen waa copy OneCoin oo kala ah oo sida OneCoin bay u shaqeynaysaa ayadana OneCoin ka fiican dahabana kriptadan Olivis la yiraahdana dahab ayaa macnaha ka dambeeya kamanigaas uu wareegay si oo ka noqdo furtay madax ka noqday runtii dad Soomaaliyeed badan oo ninkan raacay ayaana jira oo liirada waaweyn oo Soomaalida ah liiradii waaweyn oo Soomaalida dad kamid ah ayaa ninkan raacay oo Olivis taas Soomaalida mar labaad kula soo laabtay oo lacag ka galiyay ninkaas saas ku tagay isaguna 2018 buu tagay waxa kamanigan soo maray laba nin oo ayaguna caan mar noqday wax yar muddo yar joogay aad u kooban isla markiibana la waayay oo ka tagay kamanigan labada nin kamaniga waxay ka noqdeen CEO waa madax bay ka noqdeen kamaniga madax ka noqdeen macnaha labada nin waxa lagu kala magacaabaa Pablo Munoz iyo Pierre Arenas iyo Pablo Munoz labada nin gabadha kamaniga madaxda ka ah ayaa waxay ka dhigtay inay noqdaan madaxda guud ee shirkadda wadda way kala horeeyeen dabcan Pablo Munoz baa horeeyay dhamaadkii 2016 ayay u magacawday ninka isaga markii la magacaabay iyo markuu ka tagay isku mid bay ahaayeen bilowgii sanadkii 2017 ayuu ninka markiiba qarsoomay soo meesha waxba jooginba ninkaas raq iyo ruux meesha uu dhigay waa la waayay ilaa hadda war laga ma hayo sababta uga tagay lama oga meel uu aadeen lama oga ninka kale isaguna ku xiray Pierre Arenas oo markaa jagadii la wareegay oo kamaniga markaa isaguna madax ka noqday bartamihii 2017 ayaa isagana lagu wareejiyay company-ga isaguna isla markiiba disappear baa ku dhacay waa la waayay la dilay naagta miyaa dishay labada nin meel la geeyay lama yaqaan labada nin ilaa hadda labada nin meel ay aadeen lama yaqaan company-ga sababta uga tagana lama yaqaan waana laba nin oo waxa la yiraahdaa labada nin ee kali ah weeye ee ka yimid meel ka baxsan company-ga systemkiisa MLM-ka ah yani company-ga saa ognahay wuxuu ku shaqeeyaa system in liskan keena qof keeno systemka kuma imaan laba nin oo banaanka laga soo qabtay ahaayeen oo si adduunka loo tiso company-gu inuu yahay company sharciyad leh oo macnaha scam aan ahayn ayaa banaanka laga soo qabtay waxa la yiraahdaa company-ga idinku madaxda guud ka noqda company dabcan way kala horeeyeen markii mid tagay kii kala hadana laga dhigay kii kalena waa la waayay macnaha labada nin marka saasay ku qulquleen meel ay aadeenna ilaa hadda lama hayo waxaan marka usoo gudbaynaa wiilal dhalinyaro ah oo ayaguna kooxa oo lagu magacaabi jiray Steenkeller Brothers waxay la bixeen Dream teamka Dreamka nimankaas Italy ama Talyaaniga ayay ka olooleen jireen millionaires bay noqdeen nimankaas bishii waxa soo galay jirtay baa la yiraahdaa ayagana $2 milyan $1 bil walba ee company ka soo galay jirtay nimankaas company-ga way ka tageen laakiin marka hore intaas company ku soo biirin OneCoin ayaguna waxay ka yimaadeen company-yaal kale oo scam ah oo tuuga ah Conligas Organo Gold company la yiraahdo ayay ka yimaadeen nimankaas shaqadoodana wax kala ma ahayn MLM-ka bay ku shaqeysan jireen kadib OneCoin bay ku soo biireen muddadaas ay soo shaqeynayeen 2017 ayay nimankaasuna company-ga ka qulquleen oo hal mar ka dareereen sababtay u tageen lama yaqaan inkastoo ay sheegeen inay business kale u wareegeen haddana waxa la sheegay inay ka tageen company-ga markay ogaadeen company-ga in Talyaanigu uu ku bilaabay investigation iyo baaris markaas ay ogaadeen kadibna waa iskaga qulquleen company-ga way ka tageen sababta waxay tahay marka su'aashu waxay tahay marka walaalayaal waxay isweydiin mudan dadka kani intaas oo milyan leeyahay bishii way qaadan jireen oo lacagta tirada badan ku qabay company-ga maxay uga tagayaan waay dabcan waa iska cadahay waxa weeye markay lacag ka heleen oo ka taajireen ayna ogaadeen company-gu inuu yahay company macnaha fake ah oo aan jirin intaan lacagtooda lagala wareegin ama lagu qaban ayay iskaga huleeli jireen qolo walba ka tagi jirtay qofka ku xiga hanta ka sheekayn doona waxa weeye Maxamed Safar nin la yiraahdo ninkan waa nin muslim ah waaga damana Dr. Safar la baxay wuxuu ahaa dadkii muslimiinta UK Ingiriiska degan ee Bakistaanta iyo muslimiinta kale oo Soomaalida ku jirto company-gan OneCoin soo galiyay oo lacag fara badan buu ka ururiyay ninkan nin millionaire laftigiisu lacag fara badan baa soo gali jirtay baa la yiraahdaa bishii bil walba $1 milyan baa soo gali jirtay baa la yiraahdaa ninkan uu ka tagay company-ga 2017 ayuu isaguna ka tagay laakiin wuxuu u wareegay company kale oo tuuga isagana oo la yiraahdo Peter Cash company la yiraahdo uu wareegay iyadoo la sheego inuu la wareegay dad fara badan oo community-giisii dadkii isaga taabacsanaa kamid ah oo OneCoin ku jiray ayaa la sheegay inuu la wareegay scam-ka kale dibka jira waxa waaye dadka waxyaalaha noocan oo kala MLM-ka ka shaqeysta scam-ka ay ayagu waxba kala garanay hadba wax lagu sheekeeyo waxa weeye waa dad iska sahlan oo u fudud in hadba koox meel inta laga kaxeeyo company la yiraahdo company-gan wuu fail garoobay ama waxba ma ahay naga keena company cusub oo ka fiican baan furaynaa kan ku soo wareega marka dad lala gurguura way hadba dad ay sahlan tahay in lala gurguura way waana ku dhacday rag Soomaali dad Soomaaliya ku dhacday runtii oo ay company-gan OneCoin markay ka wareegeen ama ayagoon weliba ka wareegin
lagu yiri company kale Olives la yiraahdo hadda wax yar ka soo sheegnayba in loola wareegay ayaa dhacday Soomaaliya oo labada company lacag ka qaadeen OneCoin lacag ka taalo ay ka qaadeen isna waxna ka hayn Olivesna ay lacag ka qaaday kadibna Olivestii waa bay burburtay oo waa lagu kala tagay marka labada company lacag bay ka dhaceen dadkiina waxa ma hayaan ayagu baa hadda la wareerinaya hadda meel loola guuraya ninka Maxamed Safar marka saas u ahaa waxaa jiray laba wiil ayaguna muslimiina Moni Munir la yiraahdo oo ayaguna Ingiriiska aad uga oleeyay promoters ahaa leader waaweyn ahaa dadkaasuna dad aad iyo aad u fara badan muslimiina ayay kamariga OneCoin soo galiyeen aakhirkiina waxay u wareegeen Dubai ayay u carareen halkaas waxay ka galeen kamaniyaal kale oo scam ah ay ugu caansaneed kamariga la yiraahdo Omnia dad badan oo dadkoodii kamidana way la wareegeen oo OneCoin ku jiray qofka ku xiga oo aan sheegana magaciisa waxa la Edward Ledbrook. The biggest race in the digital world is who can create the first global cryptocurrency. Because whoever does that will create the equivalent of the Facebook of the cryptocurrency world. ninkan isagu wuxuu ahaa big promoter nin UK-da aad iyo aad ugu ololeeyay ayuu ahaa oo isaguna Ingiriiska dad fara badan soo galiyay company-gan ninkan nin meel walba taagan buu isagu ahaa oo caana YouTube-yadana aad iyo aad uga hadla ninkan odagaahi company-gan OneCoin uu ka tagay qofku waxa weeye aan sheegi doona Tom McMurrian waa nin Mareykanka oo ololeyn jiray asalkiisa horena xabsi buu ka soo baxay nin macnaha xabsi soo maray ayuu ahaa YouTuber weyn ayuu ahaa YouTube-ka aad uga hadlo aad OneCoin u difaaca qofkii OneCoin wax ka sheegana YouTube-ka ta soo fariista aad iyo aad caayo waxa uu sheegayo ahaa dad badan oo Mareykanna galiyay ninka odaga company-ga OneCoin uu ka siibtay si aan la fahmin ayuu uga siibtay uga cararay kadibna wuxuu wareegay shirkad kale oo la yiraahdo MD Coin oo ayaduna scam ah tuuga ninka xigaan sheegi doono waxa lagu magacaabaa Mark Scott isaguna wuxuu ahaa dadkii ka ololeyn jiray company-ga uga ololeyn jiray Mareykanka promoter weyn ayuu ahaa dad Mareykanna soo galiyay ninka isaga Mareykanka ayaa qabtay xabsi ayayna galiyeen sanadkii la soo dhaafay 2018 xabsiyada Mareykanka ayuuna ku xiran yahay iyadoo loo haysto company-gan OneCoin inuu ku lug lahaa ninka odaga halkaas liinta ku cabiya ninka ku xiga waxaan jeclaan lahaa dadku inay si fiican u dhageystaan ninka magaciisa waxa la yiraahdaa Konstantin Ignatov. I want you to know, the way you believe in me, I believe in you. Konstantin Ignatov waa ninkii la dhashay gabadhii company-gan aastay ee la oran jiray Dr. Ruja Ignatova walaalkeed weey ninka odagaahi wuxuu soo baxay oo caan soo noqday markii gabadhii ay dhuumatay ama carartay kadib ayuu soo baxay 2017 dhamaadkiisii ilaa 2018 ilaa 2019 qaybteeda hore ayuu aad u ololeeyay company-ga caan noqday meelo badan maray wadamo fara badan oo shirar ku qabtay company-ga aad u soo kiciyay gabadhii markay dhuumatay walaashiisa kadib adigu waa nin aan dhigi karno wuu dhaxlay company-ga uu dhaxlay macnaha company waa company family ba moodaa marka isaga dhaxlay oo oran karnaa waa ninka company-ga la wareegay hogaamintiisa ninka odaga nin caan u ahaa waa nin maartay qof walba yaqaano marka ninka odaga wuxuu company-ga soo wadaba oo hadba been sheegay hadba meel soo istaagaba aakhirkii bishii March 3 2019 ayuu wuxuu yimid Mareykanka oo company-gan arrimihiisa OneCoin u yimid inuu uga ololeeyo kadibna Mareykanka ayaa xiray xabsi ayuuna ku jiraa hadda maxkamad ayuuna sugayaa iyadoo loo haysto inuu OneCoin uu yahay dadkii macnaha waday oo uu ololeynayay loona haysto dambiyaal fara badan oo ay kamid tahay OneCoin oo cryptocurrency fake inuu sameeyay macnaha inuu ku jiro isla markaasna lacag fara badan dad badan ka lunsaday money laundering iyo hawl fara badan baa ninkan loo haystaa waana ninkii company-ga madaxda ka ogaada ninka odaga waa la xiray xabsigaas uu ku jiraa halkaas liinta ku cabaya maxkamadiisa weli ma dhamaan maalin dhawaato wuxuu codsaday in uu xabsiga laga sii daayo ee uu gurigiisa joogo inta maxkamaddu ay ka dhamaanayso laakiin waa laga diiday waxa aad iyo aad cajiib u ahayd runtii oo mudan in la sheego ninkan waxa uu sameeyay wuxuu yiri maxkamaddii wuxuu ka codsaday Mareykanka ahayd wuxuu yiri waxaan beel u dhigi doonaa lacag ayaan dhigi doonaa $10 milyan oo kaash ah iyo $20 milyan oo hanti ah ayaa maxkamadda ku wareejin doonaa si aan banaanka u joogo aan gurigayga u joogo oo maxkamadda inta ka dhamaanayso aan guriga u joogo ee aan xabsiga ugu jirin waxaan kula sameyn doonaa bureau ballan qaaday inuu telefoonkiisa ka fogaan doono internetna uu isticmaali doonin uu oleyn doonin company-ga OneCoin hawshiisana uu sageli doonin waxaa kaloo ballan qaaday haddii maxkamaddu u ogolaato inuu banaanka joogo xabsiga ka joogo banaanka in uu bixin doono 4 nin oo waardiyaal ah uu yiri soo qorta 4 nin oo security ah lacagtooda anaa bixinaya 4 nin oo ani waardiyeeyay inaana fakan iga waardiyeeya lacagtooda anaa bixinaya bil walba waxyaalo fara badan oo noocaas ah ayuu ninkaanu maxkamadda horgeeyay si loo sii daayo oo banaanka u joogo inta maxkamadiisu ka dhamaanayso laakiin maxkamaddu way ka diiday nin la aamini karin ma tiid bay yiraahdeen saadaradeed xabsigu ninkaas liinta ku cabaya xabsigu ku jira Mareykanka maxkamadiisana weli ma dhamaan dambiyada loo haystana waxay gaari karaan haddii la xukumo 1 sano ilaa 20 sano inta u dhaxayso xabsi ayuu qaadan karaa lama yaqaan kay noqon doonto waana ninkii company-ga ugu weynaa halkaas ayaa company-gii runtii qiilqiil mar labaad uu ku galay kadib markii walaashiisa tagtay 2017 ayaa isagana 2019 bishii March
lagu xiray Mareykanka ninkaas halkaas ku jira ninkaas markii la xiray runtii kamariga uu isku dhaxyaacay dad far badan baa ka firxaday marka waaweyn ayaa kamariga ka yaacay dadkii yaacay waxaa kamid ahaa isaguna sheegi doona in la yiraahdo Jose ama Josena way dhahan Jose Gordo. Es real la realidad, ya nos conocemos desde hace muchísimo. Queridos amigos, un servidor, José Gordo, distribuidor independiente de la compañía Wildlife Network. Jose Gordo nin wuxuu ahaa aad iyo aad big distributor ah aad kamanigan ugu soo shaqeeyay ee Latina wadamada Latin America aad uga soo shaqeeyay lacag fara badan ee maartay malaayiin dollarna ka soo ururiyay ayuu ahaa caan kamaniga abu ahaa runtii guribada wasaatooyada fara badan ayuu ku jiray oo dadka uu marka ka tawjiihin jiray oo OneCoin uga xayeysiin jiray nin caan oo ahaa ninkaan markii ninkaan la xirayba kamaniga uu dhuuntay warkiisana waa la waayay bishii March 2019 laakiin markaas si officially ama rasmi ah Muuse Dhin waa sacsilay hadda bishaan gudaheeda bisha 9aad ee 2019 September ayuu soo dhigay video YouTube ah oo sheegay inuu kamaniga OneCoin ka tagay oo u wareegay kamaniga loo la yiraahdo Apex oo sababna scam kala u wareegay basically kamaniga kala tuugaa buu wareegay ninkaas kamaniga uu ka tagay ninkaan marka runtii dabarjabo weyn buu isna ku noqday kamaniga waxa kale oo isla markiiba raacay gabar isaga la shaqeyn jirtay Maria Lopez la yiraahdo ayaduna bishaan ayay ku dhawaaqday September inay kamanigan ay ka tagtay bishaan ay ku dhawaaqday inay ka tagtay ayaduna gabar waxay aad caan ah oo Latin America wadamada la isku yiraahdo ee Spanish ku hadla ay aad iyo aad uga soo urursay lacag aad iyo aad u fara badan waxa isla bishaan video soo dhigay oo inuu kamaniga ka tagay cadeeyay nin la yiraahdo Habib Zahid oo muslim ah oo master distributor ahaa ninka isaguna uu ka tagay kamaniga nin weyn buu ahaa ninka isaguna caan su'aashu waxay tahay walaalayaal dadka Soomaaliyeed ee kamaniga rashada ka qaba ee loogu sheekeynayo kamani fiican weeye kamna maaha tugana maaha waa kamani fiican soo gala lacagta dhiibta dadkan maxay u yaacayaan inta qof haddaan soo sheegnay kamanigan ee madaxweynta ahaa ee madaxda ka soo noqday ee meelaha u sareeya ka gaaray ee lacagta adduunka ugu badan qaadanayay say sheegeen maxay kamaniga uga tageen yani waa arrin loo baahan yahay qofka Soomaaliga isagu inuu is weydiiyo arrinta jawaabteeda dadka u deynaya idinka jawaab kamaniga waxa ka tagay waan ku soo khatimi doonaa intaan Soomaalida u soo gudbin nin lagu magacaabo Duncan Arthur waa ninka sameeyay New Deal Shaker ka cusub laba deal shaker bay kamaniga leeyahay insan soo sheegnay hadda ka hor deal shaker hore iyo mid dambe oo deal shaker la yiraahdo cusub oo macnuusu yahay website kamanigu uu yiri hanti baa taala website-kaas waa website online ah OneCoin wax loo gadan karo ninka Duncan Arthur ninkii sameeyay baa New Deal Shaker sagana manager ka ahaa kamanigan walaal ninkan waa ka tagay ilaahay baan ku dhaarshay Deal Shaker ninkii sameeyay kamanigan OneCoin waxay ku faham jirtay weligood ninkan Duncan Arthurna way koolkoolan jireen aad u koolkoolan jireen Duncan Arthur baa yiri markaas way wareysan jireen meesha wax marayaan waa soo socdaa Deal Shaker diyaar waaye mar dhow waxaan launch gareyn doonaa kamaniga OneCoin public markuu noqdo Deal Shaker ba si toos wax loo gadan doonaa meel fiican bay maraysaa nin balaaya wuxuu aad iyo aad wax isku xirayo ahaa asalkiisana South African inuu yahay aan filayo cadana kamaniga ninkan waa ka tagay dhowr bilood ka hor ayuu ka tagay wuxuuna u wareegay koonan kale oo uu ku magacaabay cryptocurrency oo samaystay iyo exchange suuq uu ku magacaabay waa suuq lagu kala sarrifto cryptocurrency-ga oo lagu magacaabo BCP ayuu yiri waa furayaa wuxuuna maalin wata soo dhigay oo yiri 30 bisha September 2019 ayaan live noqonaynaa oo aan suuqeena BCP la yiraahdo exchange-ga ayaan furay doonaa buu ninkan kamaniga saas uga tagay waana ka wareegay meesha hadii khayr yaallo kamaniga OneCoin uu soo wado sida hadda maalmaha ay wadaan inay public tagi doonaan oo ay koonkooda soo deyn doonaan suuq exchange ah oo lacagtooda cryptocurrency-ga OneCoin lagu magacaabo wax looga sarifan kara ama iyadaba lagu kaashgareysan karo ay maalmahan aad u wadaan hadii arrintaas arrin jirta tahay walaalayaal ninkii dhamay Deal Shaker kooday muxuu uga tagay oo Habib Zahid oo hadda ka tagay muxuu uga tagay oo Jose Gordo iyo gabadhan Maria maxay uga tageen afarta qof oo hadda ka tagay bishaan iyo bilihii la soo dhaafay maxay uga dhaqaaqeen ma waxay suuq kari waayeen kamanigu markii meesha ugu dambeysay weligeed la sugay markuu soo gaaray ee ahayd inay suuq la tago exchange ah ee lacagtan cryptada ee OneCoin ku magacaabay wax lagu sarifan karo heerka miyay suuq kari waayeen inta heerka laga soo gaaray oo la leeyahay bilahan baa la dhameyn doonaa arrinta macnaheedu waxay ku tusinaysaa dadka kan waa dad waxaan ka yaqaan ayaga ka yaqaan waxaan inta aysan baasho qurmin ayay ka siibanayaan inta kaliya way inta baasho isku qurmin ee ayagoo maartay meel cidla dhex taagan la arag ayay tartiib uga siibanayaan walaal dadkaas dadkii ajaanibta bay ahayn laakiin dadka Soomaalida ka tagay runtii kamaniga u soo shaqeeyay ee meelaha heer sare ka gaaray way jiraan dad Soomaaliya ee ka tagay top leaders ahaa waxa kamid ah nin caan ahaa ee runtii TV-yaasha Soomaalida ka soo bixi jiray soo kamaniga OneCoin xayeysiinaya oo marar badan arkaysi isagoo oranaya 2018 October markii la gaaro 8deeda OneCoin waxay imaan doontaa public suuqa imaan doontaa markaas lacagta la sarifan doona nin wuxuu runtii meel sare ka gaaray kamanigan ninka odaga magaciisa sheegi maayo laakiin waa nin YouTube-yada lagu arki karo qofkii rabo ka raadin karo kamanigan uu iskaga tagay
OneCoin wuxuuna u wareegay company Olives la yiraahdo hadda koran ka soo sheekeynay ayuu u wareegay Olivesna kadib wuu socon waayay kadibna wuu ka tagay meelaha kale hadda u wareegay meelo kale u wareegay marka isaga iyo dad kale oo Soomaaliya oo lidara oo ka tagay company-gan marka hore meel fiican ka gaaray runtii markay ogaadeen meesha inaysan waxba oo lin isaga tagay waxaas ayaan darra ah dadka wali company-gan si daba socda lidara Soomaaliyeed ah ee wali dadka Soomaaliyeed ugu yeeray company-gan waa macsaradii One Life aan ku gadanay anigii saaxiibkay waxaan la cabirayo waa macsaradii oo 5 litir ah dadku waa kacsan yahay waa kaas beer One Life maanta u jeedin waatana meeshan waa bakaaro waxa lagu kala gadanayaa OneCoin meeshan cilada ay lagu kala tagay ee hadda meydka maraysa baqtiga waa meyd la sido company-gan oo naxash loo wado dadka Soomaaliyeed hadda markay meydka wax ka sida ee wali ayagu quusan la ee leedariinta wax ka hadlaya dadkii lacag ku darsan ka hadli maayo waxa ka hadlaya dadkii leedariinta qaar ayaa wali company-gan oo oleynaya kuwaas waxa leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala iimaanka haynay soo celiyo lacag xalaalana Allah haynay siiyo iyo israaqad xalaala shaqo wanaagsan oo xalaala ka raadsada meeshan waa lagu kala tagay meesha waxa ma yeelaan intaas waxaan ku soo gabagabaynaynaa dadkii company-gan madaxda ka ahaa ee ka tagay مسؤولية سرقة جاري كدبنا سرقة دويننا walaalkeen sayid dariiqo iyo Yuusuf oo dhamaantood kamid ah company-ga One Life coin One Life waxaan leenahay ku soo dhawaada Garowe One Academic iyo ganacsi ku hoos jira wuxuu u yimi barnaamijkii Deal Shaker waxaan leenahay soo dhawaada isagoo walaalkeen iyo walaalaheena kala kismaayo iyo xamar iyo ilaa Ingiriiska iyo dhul kale inuu ka soo duulay waxaan leeyahay dadka bahda OneCoin One Life waxa layni ka baahan yahay in aad ka faa'iideysataan chance-ka dhamaantiin si aad u ogaatid xagee u socotaa xagee ka dhaqaaqaysaa berrito maxaa gaaraysaa maanta xagee joogtaa saadamana xagee u socotaa waxaan leeyahay ku soo dhawaada dalkiini iyo dadkiini haddana waxaan soo gudbaynaa company-gan wadamo laga dacweeyay ma jira waa jira wadamada laga dacweeyay company-gan ama cases dacwo laga furay ama dad looga xiray ama hanti laga wareegay wadamada waxa kamid ah Italy Talyaaniga waxa kamid ah Ingiriiska waxa kamid ah Germany waxa kamid ah Sweden waxa kamid ah Hungary waxa kamid ah Austria waxa kamid ah Slovenia waxa kamid ah Bulgaria oo iyada xafiiskii weynaa ee company-gan lahaa ee Bulgaria ku yaala iyada waa loo dhacay Interpol ayaa u dacwo jabsaday sanadkii la soo dhaafay wadamada waxa kamid ah Thailand oo iyadu dadka xirxirtay waliba Indonesia kamid ah dadka xirxirtay China oo dadka xirtay hanti badan kala wareegtay company-gan Malaysia oo dadka xirtaa kamid ah Mareykanka oo dadka xirtay fara badan ninkii hadda ugu weynaan hadda uu xiran yahay ayaa kamid ah Indonesia kamid ah New Zealand ba kamid ah Australia kamid ah wadamo fara badan runtii aan tirin karin oo hadda aan soo koobi karin ayaa company-gan dacwo ogan tahay oo dacwo looga furay India kamid ah wadamada maartay India kamid dadka wadamada maartay runtii dadka ka xiray ee company-gan OneCoin ka mamnuucay wadankooda intaas ayaa marka ku soo gabagabeeyna qaybtii shanaad aan ugu talagalnay inaan uga sheekayno company-gan OneCoin sababta uga sheekaynayna company-gan OneCoin shirkadda OneCoin waa shirkad runtii Soomaaliya dhexdeeda aad iyo aad ugu faaftay dad fara badan oo Soomaaliyeed lacag iyo hanti ka qaaday weeye welina sii wada hantidii inay dadka urursato marka waxaan ugu talagalnay dadku inay ku baraarugaan waa ay company-gan banaanka ka maraan hadda BBC-da maalmaha waxaan arkayay shirkaddan meediyaha ah ee warbaahinta BBC-da la yiraahdo waxay wadaa hadda dabagal ku wadaa OneCoin barnaamijyo fara badan ayayna ka samaysay ilaa 8 barnaamij bay ugu talagashay inay ka samayso laba kamid ah hadda way soo deysay kuwii kalena waa la sugayaa qofkii raba BBC-da ha kala socdo arrimaha OneCoin qaybihii hore qofkii ay dhaafeen afartii qaybood hore linkiga hoose ayay ka fiirsan karaan oo ka daawan karaan sidoo kale linkiga hoose insha Allah waxaan soo gelin doonaa dacwadii Mareykanku u qabsaday company-gan OneCoin ee lagu soo oogay ninka odaga la oran jiray Konstantin Ignatov iyo gabadhii company-ga aastay la oran jiray Ruja Ignatova dacwadii Mareykanku ay ka keeneen maxkamadda Mareykanku ay ka diyaarisay oo ilaa 30 page ka badan ayadana hoos ayaan ka arki doonaa oo ka daalan karnaa insha Allah taala wabillahi tawfiq